إلهينا قدمايو تاريخ تقارن ما يسوع إلهينا قدمايو وانا رشقي ميا تنتقود قدرنا يا وانا رشقي ميا تنتقود قدرنا يا ترى لنا وقبنا يا هركها وشوكا بيغما بهي قرانكا وانا رشقي ميا تنتقود قدرنا يا وانا رشقي ميا تنتقود قدرنا يا ترى لنا وقبنا يا هركها وشوكا بيغما بهي قرانكا تاريخ تقارن ما يسوع إلهينا قدمايو تاريخ تقارن ما يسوع إلهينا قدمايو بسم الله الرحمن الرحيم ولي داوديال waxaan ku guda jirnaa safarkaygii heel waxbarasho waxaan la joogaa maamulaha iskuulka Al Islam Sheekh Maxamed bal hadda waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha iyo caqabadaha iyo horumarka uu iskuulku ku talaabsaday iyo baaqa uu ka bandayn doonaba bal hadda maamulku soo dhaw marka hore faafahinaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا محمد يونس علمي أهنا مامولها سكولك عيال marka hore waxaan salaamayaa wafdida noo timiday heel waxbarasho waxaan leeyahay soo dhawaada iyo suxufiyiinta marka labaad waxaan ka hadlayaa caqabadaha maxay tahay xagga iskuulka nagala soo darsa markasta taasoo ilaa dee muddadii iskuulka aan bilownay dee ka jirta iskuulkan waxaa ka midana xagga macallimiinta oo aad u liidata ilaa markii iskuulkan bilownayna hal macallin ayaan kusoo bilownay 2 macallin bay gaadhay insha Allah imika waxay maraysaa 6 macallin baan wadnaa iyo fasalkii 8aad markastana taas waa haysata insha Allah dee waxaan rajaynaynaa taana in maxaydaanay walaalahay ay wax nagala qaban doonaan xagga horumarka uu dugsigu gaadhay aad buu fiican yahay dee waxaan bilownay iskuulkan aduu 2007 iminkana waxaan marayaa ilaa 3 fasal oo eedka ka baxday kii afraad baa imika baxay haddii la yiraahdo oo sii lactigi doona aad buu fiican marka xagga waxbarashada maxaydaanay dugsigani isagoo ay macallimiin la'aan haysto oo aad macallimiintu aanay ugu fileen haddana maxaydaanay dadka ka baxayay aad bay wanaagsan yihiin oo meelahan dee tuulooyinka nagu dhow oo kale ma jiraan wax maxaydaanay ama aan degmada Siilac ka tirsanahay malaa degmada Siilac oo kaliya hata iyo maxaydaanay xarad iyo habaas iyo Cabdiqaadir ba wax maxaydaanay iyaguna eedhirku ay ka baxaan jireen oo hortay ay ka baxeen inta kale anaga maxaydaanay yaa ugu horeyna marka aad buu fiican tahay xagga waxbarashada dugsigani insha Allah waxaan rajaynayaa disaa iyo si ka sii badan inaan kor sii qaadno dee intaan wadi karno waayo macallinka halkan joogay maxaydaanay mishaar uu qaato oo meesha uu ku joogay ma jirto oo 800 Soomaaliland ay wasaaraddu bixisaa oo la wada ogyahay taasina macallin maxaydaanay xaas loo reer waxma qaban kartay haddana dee waxa laga tiilayahay waa dadka meesha jooga dadkaas baan ku tiilaanahay oo na joognaa inta meesha insha Allah waan u joogaynaa dee waa sidaas horta xaggi maxaydaanay xaggi macallimiinta iyo xaggi maxaydaanay horumarkii dugsiga talabaad dugsiga isaguna in la kordhiyo iyo in maxaydaanay deer loo sameeyo iyadoo dabayshu maxaydaanay markastaba ay ciidda soo dhigto dee taasina iyadna waa baahiya maxaydaanay meesha ka jira loo baahan yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dee ay nagala qabtaan walaalahay ay wax nagala qabtaan iyo ciddii kale maxaydaanay danaynaysa inay wax ka qabato
dee waan u mahad celinaynaa dee walaalaha noo yimid. aad baad mahadsantahay maxamed amba maamule iskuulka 6 macalin baa ka howlgala 6 macalin 800 oo laani waxay ka dhigan tahay $80 oo Soomaaliya $80 lacagta Mareykanka $80 buu macalinku ku shaqeeyaa mise gunooyin bad ka qaadan ardayda 6 macalin baa iskuulka ka howlgali jirtay mid ahaan iminka lama joogo waa naga tagay 5 baan ku joognaa 3 ka mid ah ayaa wasaaradda waxbarashada wax ka qaadata oo $800 ama $80 qaadata guna kale meel ka qaataan ma jirto sidaasaan maxaydaanay ku shaqeynaa ardayda wax kama qaadaan miyo wax kama qaadnaa ardayda waa free ha buugaagtan manhajkan daabacan ee hortiina yaala iskuul marka la yiraahdo uu howlo badan yahay manhajkan iyo muxuu ahaa qaab nololeedkii kale iskuulka iyo hawl u socodkii iskuulka iyada ka caawiya waxaa naga caawiyey buugtan manhajka walaalaheen group al-islaam ku jira ayaa naga caawiyey markaan anagu cabashadooda u bandhignay dadkii waa dad taageer oo soo barakacay ay badan yihiin way iibsan kari waayeen buugtii markii wasaaraddu tiri hal la iibsado sidaas markaan u bandhignay ayaga ayaa naga caawiyey walaalaha group al-islaam iyagaana noo keenay buugtan. maxamed su-aasha maadaama guntii gabagabadiisa ka jirno waraysigeena su-aasha aan kusoo gabagabayn lahaa waxa weeyaan had iyo jeer ardayda ka soo baxda dugsiyada xeebaha ku yaala garaafka amba heerkay ka gaadhaan waxbarashada Soomaaliland aad buu hooseeya maxaa sabab u ah caqabadaha ugu adag ee haysta maxay kulley taasi waa la isla wada garanayaa dadkan xeebaha dadka aad bay uga dambeeyaan maadaama ay ku dambeeyeen xagga miyiga ku dambeeyeen aad bay dadku uga sii dambeeyaan iyadoo taasi jirto iyagu marka hore miyiga ku dambeeyeen haddana maxay daanay waxaana jirin waxa baahiyihii asaasiga ahaa ee maxay daanay uu qofku ama waxbarashada ku dhismaysay aad buu liitaan taasi darteed ayaa ugu wacan inay ardayda levelkooda aad u hooseyso. Sacaadadiin Secondary School markii koowaad ee Soomaaliland la maqlo oo soo galo 10ka ugu sareeya 10ka kaalmood ee waxbarashada ugu sareysa qayb ma kula haydeen ardaydii kaalmaha hore soo gashay ardaydaas Sacaadadiin Secondary School ka baxday horta anagu waxaanu ku leenahay fantri ardayga imika maadaama 3 aid oo imika aan naga gudbeen ardaygii anaga naga gudbay haatan wuxuu socdaa fantri buu socdaa wali wax fanfoor maxay daanay gaari male insha Allah laakiin waan rajaynaynaa inaan ku yeelano sanadaha soo socda. aad maasantay maxamed aad baan kaga mahadnaqay waqtigaaga fiican. bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan daawaday abdul kastoo daafaha dunida aad ka joogtaan waxaan saaka ku soo qornahay socdaalka hiil waxbarasho magaalada al-islaam hadda waxaan ag joognaa macallimiinta mid kamid ah bulshada oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waxaan weeyaan aadan jaamac xasan marka hore waa salaamantiin saxaafadda haddii aan ka warbixiyo dugsigan waxaa la yidhaha al-islaam wuxuu ka kooban yahay fasal koowaad ilaa 8aad dugsi hoose dhexe weeye marka saad arkaysaanba dugsiga waa meeshaas saxaaraha ku yaala haddii baahiyaha dugsiga aan ka warbixiyo waxa weeyaan waxaan ku dhignaa waxa weeyaan waa multigrade heerarkii kala duwanaa caqabadan haystaa waxa weeyaan ardaydii oo aan haysan fasalla ku filan macallimiintii oo nagu yar waxaan jecelahay ciddii danaynaysa inay baahiyaha naga daboolo waanad mahadsantihiin walaalheena. macallin su'aalan ka weydiiyo halka iskuulka caadiga ah ee ardayda loogu talagalay baa muxuu ka dhisan halkana jiingad kala ka dhisteen baahida keentay maxay tahay baahida keentay waxay tahay horta baahi ilaahay ba horta dabooli kala ardaydii oo badatay ayaa keentay in jiingadihii loo sameeyo dugsi kale wala noo sameeyay laakiin kana ardaydii markii siyaaday waxa wixii awoodooda wadanka ay hay'adii noogu samafashay waa jiingadahaas arkaysan intii dawlad heli karaayo ma garanaysaa dhaqaale yaa dhisay iskuulkana amba gacanta ka geystay ma qurba joog mawlaalaha reer Jabuuti ma hay'adaha Soomaaliland midkee hay'adaha Soomaaliland ee samafalka ee ayoda
ayaa noo asaastay dugsigan. tirada guud ma sheegi kartaa iskuulka dhigata rag iyo dumar? Anigoo soo duuduubaya aduu waa 200 wax yar baa ka dhiman baan odhan karaa. iskuulku imisaad ilaa imisaad ardaydii ka baxday oo dugsiga sare u gudubtay ma jirtaa? dugsigu wuxuu ka kooban yahay waa fasal koobaad ilaa 8aad. way ka baxeen difcaddii u horeysay 3 difcadood ayaa ka baxay oo 8aad ah ayaa u gudbay dugsi sare. ku suganahay weli kormeerkaygii hiil waxbarasho waxaan la joogaa ardayda galaasyada mid ka mid ah bal dareenkeedan weydiin doonaa. magacaygana waxaa la yidhahaa ugaa Sadexiyo Cumar. 100% waan idin salaamayaa. aniga markay igu farxadda badneed waxay kolkii buugaagta la siiyay ee la igu sawiray marka waxa weeyaan dugsiga 8aadna walaal waanahay waan idin salaamayaa. 100% waan idin salaamayaa. dadka Soomaaliyeed amba dumarkeenu mar haday weynaadaan waxbarashada way ka khajilaan, maxaad u oran kartaa dumarka fariinaad u dirtay? waxa weeyaan waxbarashadu waa qaali weeyaan. waxa weeyaan qofka hadoona waxbarasho lahayn iftiin ma jiro. dumarka iyaga waxa weeyaan waa dumar miyi bay haayeen oo dumar miyi ka yimid bay haayeen. waxbarashadoodana qoor walba waxa la yiraahdaa kaalaya. anigaba waxay igu kadeeday kolkan shay yar sida u qori waayay aan idhi waxaan baranno oo aan dadaalo. saan walba waxay tiri ubadkii rabaygoye saacada iga dhacday kolkay tiri baan isiri wallaahi billaahi halka inaad wax ka barataa waajib. imagana waan ku dadaalaa had iyo jeer magaaladayada joogo inkastoo tuulo yar tahay oo ina waxbarasho lahayn haddana waxaan ka yiraahdaa goor walba waxaan baranno quraanka aan baranno. barashadu qaali weeyaan. goor walba waan u sheegaa waxbarashaduna ceeb ma leh aniga ila tahay xaggan ka jooga aniga ceeb ila ma leh. shalay toole markii aad muxuu ahaa bila aqoonta ahayd magaalada joogtay iyo maanta fasalka 8aad marayso dareen intee leeg baa ku soo koray? sidee baad wax u dareemaysaa isbedelka dareentay? isbedelkaygu aad iyo aad buu u fiican yahay taasoo macallimiinteedu ay garab qabatay. anigoo buug yar iska sita baan u imiday macallimiinta maamulaha kolkaan u imidayna ofiska ayaan ugu galay waqti xilligan oo kala waxaan ka yidhi waxbarashaan doonaya marxaba buu iga yidhi wixii aad kaale doonayso waan ku siinayaa. sidaasuu kaal ii siiyey wixii aan garan waayana macallin waxaasaan garan waayay haddaan idhaahdo wuu ii siiyey kaal kolkaan helay xaggii odaygana kaal baan ka helay. dugsigan carruurtaydaa ka baxday 2 ciyaaloo leeyahay ayaa ka baxday. markaaba iga yidhi maxaad doonaysaa ugaas? waxbarashaan doonaya oo igu qosleen markaasaan kari anu qosol uma baahni waxaan doonayaa inaan wax barto waxbarashaan u baahan ahaan. waa runtaa buu macallimiintu way igu soo guustay 6 bay haayeen markaasaa la sax waad quman tahay kaalkii kolkaan helay dhiirana wax la yiraahdo baan helay wii fariisiyay marka hablahan yar yar bii fariisiyay wuxuu iga yiri ma karisid carruurta yar yar labaad bii fariisiyay marka waxaan ka yidhi anu waxba u qorin labaad sideen u fadhii karaa anaa ku siinayo buu kaal ku dhigayo ku caawinayo marka caawi baan sidaa u helay sidaasaan u galay wili xilligaana caawidii baan hayaayo halka kolkaan joogo ugaas maxaa ku dhacay kaale kolkaan yar joog sax laga kaale ugaas kaale maxaa ku dhacay hasaan qalin ba ma haysto anaaba qalin ku siinay marka kaalka sidaasaan u haystaa weli waanan doonayaa inaan wax kasta barto dadka iyagana waan soo jiidanay haddii la yidhaa. ugaaso dadkii buugaagteedii ku soo caawiyay walaalihiina adeeg walaal ee dalka Djibouti iyaga maxaad fariin u diraysaa baba? waxaan u dirayaa oo fariin baaq walaalnimo u dirayaa waan in salaamayaa halkay ka soo baxday lacagtaasna baraka ayaan gelinayaa 100% baan salaamayaa. waxa weeyaan kal horeba lacag dirtadaas la maanta markaan qaadanay waan farxay aniga laftaydu tii u horeysaan waa laygu sawiray aad baan u baaqayaa waan caawinayaa waan ku dadaalayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa walaalahayaga. su'aasha ugu dambeeyay bisaan ku weydiin doonaa sidee baad iskugu farsamaysay noloshii guriga iyo tan waxbarashada maadaama waqtigii gelinka hore guriga laga baahan hooyo tahay tan waxbarashada sidee dumarka kale uga faa'iideystaan? waxaan uga faa'iideystay 4 habeennimaanka quraacda markaan diyaariyay carruurta horta iyadu way iga gudubtay odaygaygi baa meesha joogay odayguna maxay meel yar buu shaqo tagaa 6 marka maxay heeday waxaan sameeyaa 4 markaan kaco xitaa ari baan leeyahay 4 markaan kaceen diyaariyo quraacdii meel baan dhigaa markaan meel dhigana arigii baan furfuraa markaan kaxeeyana waan imaadaa haddii aan u baahanahay waxaan karsado islaanta iibinaysa hilibkaan u tago waxaan ka yidhaa walaaliyo dhig haddaan doono intaan gargaraha iyo dabka qaadeen ridaana ka yidhaa bislaaya khudradda loo dhiibo kabacdi marka yarna bariiska baan karsadaa waan dadaalaa si fiican baan u dadaalaayo haddii cuntada meesha toogo oo hooyaan ahay waa runtaa weeyaan waan farsameeyaa waxaan ku farsameeyaa bisaacade haddaan maraq yar leeyahay islaanta baan u dhiibtaan ka yidhaa bisle haddaan doono macal bariiska basasha intaan isku rida maca 3 baan u geeyo waxaan ka yidhaa bisle wax bislo ma soo qaata saasaan u farsameeyaa si farsamaan u wadaa. maxaad u diraysaa baaq?
baaq maxaad u diraysaa haweenka kula mida dhigaaga ah ee tuulada ceel islaam ku nool baaq waxaan u dirayaa anigu waasadeheeya cumara de way arkaan inay soo dadaalaan oo ay labeeyaan oo ay afreeyaan oo ay shareeyaan bulsho noqoto igu daydaan oo ay eegtaan baan u dirayaa 100% waana u dadaalayaa aniguna aad baad u mahadsan tahay maamaday ugaaso hadda waxaa garabkayga jooga gudoomiyaha muxuu adeeg walaal muuse axmed cismaan balsna dareenkiisaan weydiin doonaa maadaama dareenadan kusoo dhex jirna mid ka duwan saakaan ceel islaam kula kulanay gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد horta waxaan salaamayaa dadka dunida daafiga wixii jooga waxa weeyaan saaka oo ceel islaam joogno oo inta todobaad khamiistii hore aan ka soo baxnay Djibouti ururka aan hogaaminayo waftiga wallahi saaka shucuurtaydu aad bay u kacsan tahay waayo ceel islaam waxaan iskooladii kale ku arag baan ku arkay waxaan arkay xaajiyada oo ma taqaanaa ciyaalkii dhex fadhido 10 dhiganaysa kulka aad bay shucuurtaydu u wanaagsan tahay ama ciyaalka aan arkayaba aan lamid ahayn ciyaaladii hore fasaladan oo kala duwan oo ciyaalkani ay hadii tooliye u dalacayaan ma taqaanaa dugsigii sare waxa shucuurtaydu aad bay u sareysaa wallahi saaka aad baan u fiican maxaad baa ku daraysaa qurba joogii amba walaalaha halkan ku jira ee maxaa dhiirigelina waxaan walaalaha halkan ku jira u dirayaa amba qurba jooga ataan amba kuwa ay maqlayaba ataan amba ururada ku jiray waxaan leeyahay walaalahayow waxbarashada waad arkaysiin awlaad haday tahay iyo ma taqaanaa hooyooyin aan kolkii hore wax dhigan haday tahayba dadka ay waxay u baahan yihiin in la gacan qabto in dhiirigelin in la siiyo in moraalkooda la dhiso in maskaxdooda la dhiso waayo qofkay maskaxdiisu dhisantahay moraalkiisu dhisan yahay ayaa wax dhigan karaya sida aan dadka u dhisi lahayn qalbigooga inaan iskugu tagnaan u baahanahay walaalayaal oo gacanta soo qabata bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku suganahay fasalka afraad muxuu ahaa dugsiga ceel islaam waxay ag jooga muumin aadan cadaawe oo kamid ah macallimiinta muxuu iskuulka ceel islaam wax ka bara amba ubadkan ku tabca bal dareenkiisna dhowr su'aalood ka weydiin doonaa muumin ku soo بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacaygu waa muumin aadan cadaawe oo baraka dugsiga hoose dhexe magaalada ceel islaam haddana ku jira fasalka afraad oo dhigayana xiisada leedahay sayniska ma sha Allah dareenkaygu fiican yahay alxamdulillah walaalahana soo boqdana waxaan leeyahay jazakallahu khayr boqashadiina waad ku mahadsantihiin dareenkayguna aad buu fiican yahay intee lagbaad muumin ka dhigaysay iskuulkan waxbarashada amba aad ka hawlgalaysay ilaa muddo 3 sano aan ka hawlgalay maxaa kugu soo baray dareenada kugu soo maray kala duwanaa maxay inay kugu darana amba kugu adkaa dareenka igu soo daray wuxuu ahaa tuuladan oo tuulo aad u yar oo ah maxay eedaanay tuulo waxbarashadeedu aad u liidato markaas waxaan dareemay baahida taalo markaa isdhig ka jawaab waxaad baratayna walaalaha sii bar groupkan buugaagtan daabacan waa buugaag daabacan hargeysa waxaan ognahay inay qiimo adag ka taagan yihiin amba lagu iibiyo oo ardayda laga iibiyo sidee bay idinka ku soo gaadhay buugaantan hema books waxay nagu soo gaadhay annaga group ceel islaam la yiraahdo Djibouti ka jira dalka adduunka oo dhan ayaa nagu soo caawiyay buugaantan oo caawimaad noo keenay ma sha Allah iyagana waxaan u baaqayaa aan leeyahay jazakallahu khayr meeshii aad ka soo saarteen insha Allah ilaahay khayr inagu bedelo maalinta qiyaamaha miisaanka xasanaadka Allah inaysan leeyahay group ceel islaam ardayda waxbarashadooda iyo waqtigaad shaqada soo gashaan iyo waqtigaad ka baxdaan waqtigan shaqada soo galaa waa 7 oo biila subaxnimo 9 oo biila waxaan siinaa break time waxaan ku soo noqonaa 10 oo biila haddana waxaan baxnaa 12 ka baxnaa ma sha Allah ardayda waxbarashadooda aad u fiican tahay intii karaanka iyaga ilaahay nagu ogyaheena inaan soo bandhigno ama aan siino ardayda waa muqaddas meeshan waxaan la soconaa inay ka mid tahay xeebaha Soomaaliland ee waqooyiga waqtiga muxuu xagaaga loo yaqaan amba hanfigu dhaco miyaad fasaxdaan ardayda mise wad u adkaysataan oo digtaan ma sha Allah waan u adkaysanaa waan dhignaa waqtiyada dugsiyada kala la fasaxo baan fasaxnaa waan u dhabar adeegnaa wax kasta oo dhaca haday dabeel tahay haday kuleel tahay iyo haday dhibaatooyin kala tahay waan u adkaysanaa waan dhabarkan u dhiganaa
muumin maadaama ood macalin amba bara ka tahay iskuulkan had iyo jeer ardayda xeebuhu imtixaanaadka somalilan meelo hoose ka soo galaan maxaa sabab u ah maxaa sababay maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa sabab u ah oo sababay kow macalimiinta oon ku filayn dugsiyada talabaad macalimiinta joogto oo baahidoodu ay ahayn mid daboolan oo mar kasta macalinku markuu baahiyeysan yahay ama uu duruufeysan yahay dee kulley waa la dareemi karayaa dee kulley wax kasta qof kastaana fadaa'il buu isordhigi karaa maanta run ahaantii marka runa sheego marka dhibaatadaas unbaa waxbarashada hoos u dhigaysaan leeyahay mid ka mid a ardayda ku jirta fasalka afraad ee dugsigan ceel islaam ayaan isna dareenkiisa weydiin doonaa magacaaga marka hore sharmaaka jaamac waa isgil sharmaaka maxaad halkan ku dhigataa class 4 baan ahay waxaan ku dhigtaa maanta maadada ugu horeysa waa science jadwal bad wax ku dhigataan mise maalinba intaa xiisado dugso hagaago maalin bixisado intii maalin bixisado jadwal maan ku jirin in xiisadaha aad ku gashaan oo maalin walba aad buugaagta ugu soo tala gashaan yes uu jira macalimiintiina ka warantayadooda iyo waxbarashadooda iyo si wax idiin fahansiiyaan iyo si idinla tacaalaanba macalimiinteeda horta waxaan ka sheegay inay noo fiican yihiin sidaa darteed macalimiinteedu si kasta wax kasta way fahansiiyaan aad baan soo fahansanaa si maadada aan ka dhinacay ka taqsanay waa English-kuna macallinkii baa kaliya hatan uu noqday macalinkaasina galaasadii baa ku batay wax noo dhigila marka English-ga aad ku adag miya may aad nooguma adkay hadii wax noo dhigo waan fahminaa se English-gi macalinkiisu yiri xabad kaliya ta joogta xabada kaliya ta ma wuxuu dhigi karayaa ilaa ay dhilaato ma dhigi kareed marka wax macalin laba xabadaas joogto iskuul English bas xabadaas jirta maxaad ka codsanaysaa walaalaha qurba jooga amba reer Jabuuti ah amba ummadda muslimiinta ku maqlaysaba maxaad baa u diraysaa fursadan ka faa'iideysanay waxaan baa u dirayaa bas inay macalimiin kale English noo keenaan oo English-kana bara buugaagtan imka daawacan sayniskeeda arkayso hargeysa waa lagu iibiyaa yaa idinka caawiyay waxaa naga caawiyay group Al Islam dalabka macalimiintiina idin gudbiyay mise idinka gudbiyay dalabka anaka macalimiintu waanu dhan daawadayaal weli saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa socdaalkii aan ku maranay xeebaha Somaliland socdaalkayga hiil waxbarasho waxaan ku sugannahay iskuulka Al Islam fasalkani waa fasal looga guuray macalin la'aan looma waayin kuraas loomana waayin arday dhigata oo ardaydu way buuxaan laakiin sidaad arkaysaan macalin la'aan buu isagu u xulan yahay walaaluhu muxuu ahaa qurba jooga iyo walaalaha reer Jabuuti iyo haddii adeeg walaal tahayba waxaan iyagana ka codsanaa anagoo fursadan ka faa'iideysanna inay macalimiintaasi bal hadda ka caawiyaan sidii macalimiin ugu soo kordhin lahaayeen si daawadayaal fasalkan waa fasalka koowaad qaybtiisii labaad iskuulka Al Islam hoose dhexe oo maanta socdaal ku marnaa anigii waftiga adeeg walaal ee dalka Jabuuti ka dhisan indhaindheeniyo xog waran dabadeed insha Allah wixii laga soo qaban karayna waa laga soo qaban baahiyahooga waanu gaarsiin doonaa halkii looga baahnaa الحوار بين علي بين يوفس وقاسم يوفس متى تستيقظ قاسم استيقظ عند فجر يوفس أين تصلي صلاة فجر قاسم تصلي في مسجد يوفس هل تنام بعد صلاة قاسم لا أنام بعد سلام بعد صلاة يوفس ماذا تفعل بعد صلاة قاسم يا والله والله هاي الله هذا محل بالله كلون معلم بالله كلون هاي وضعته إيريك أنا كأنا كوبد هاي ما له بلا كوبد ولا بلا متى سعاه هي معاك
awada degaad ya awaya يا الرأدي عرب عرب هاي صعدتك ددالة ددال مجري بوحية ديوانية قرأت كلمة دي تضبط حرف كو جرتي بقى وتصو صارتين ما رياض مكانة يا هاي وفصل كم سنة؟ واشتحال daawadayaal halkana sidoo maamula maxamed noo sheegay waxa ku wada jira laba glass waa shanaad iyo lixaad hargeysa iyo caalamka amba iskuulada kama dhacdo laba fasal oo la isku daro laakiin kulli baahi baa keentay glass la'aaneed macallimiin la'aaneed way jirtay idna sidoo maxamed noo sheegay sidaas awgeed maxamed maamul isagoo dadaalaya wuxuu isku keenay laba fasal oo shanaad iyo lixaad ah inay meel ku wada dhigaan oo waliba waqti badan galiyaan marna xiisadii shanaad dhigaan marna xiisadii lixaad dhigaan wada arki karaysaan baahida meesha taala amba dareemi karaysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad halkaa muxuu ahaa sidii iskuulka loo balaadhin lahaa sidii macallimiinta loogu muxuu ahaa soo kordhin lahaa sidii gunooyinkooda iyo dhiirigelintooda kor loogu qaadi lahaa sababtoo ah meesha waa meel xeebeed amba waa magaalo xeebeed howlaha muxuu ahaa ka socdaana ay aad u adag yihiin in la dhiirigeliyo macallimiintu si ay u sii joogaan amba ay ardayda gacanta ugu sii hayaanna waa laga maarmaan qof kastoo muslim amba qof kasta oo u dhashay gobolka Saaland amba qof kasta oo u dhashay dalka Djibouti waxaan leenahay ka soo qayb qaado waa dalkaaga hooye taariikhdu qarin ma ihiso إلهينا قدمايو taariikhdu qarin ma ihiso إلهينا قدمايو